ceeb ay ku tahay inuu dhex fadhiyo guriga madaxweynaha waxay ahayd inuu isku xishoodo it's supposed to feel shy you know oo iska aamusay eed oo dhaho ilaahu meeshan anoo nabada oo aan ku ceeboobin ilaahu uga bixiyo saasay eed sharaftuna saasay ugu jirtay but I don't know why he don't do it marka qof aan waxba ahayn ciidan kuuma hayo xoolo kuuma hayo caqli kuuma hayo dastuur kuuma hayo xigmad kuuma hayo muxuu hayaa nothing just leave it forget him iska ilmaan muxuu intuu ku jiraa wuxuu ku jiraa hal qoloo ku jiraa sayid kama imaan kariyo oo wax kaama halay kariyo ex baarlamaan tegi ma kariyo oo wax kaama halay kariyo seenay tegi ma kariyo oo waxba kaama halay karo waa nin qol ku jira asiga iska dhaaf wuxuu rabaa soo qoro wuxuu rabaa ha sheego in loo tago maba ahaynba fiiri in loo tago oo la dhaho waxaa la dhexdhexaadinaya ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha la dhexdhexaada in la dhaho aaba khaladaba maxaad ninkan uga baahan tahay nin ku jira guri ku jira oo sayidka imaan karin oo ex baarlamaan tegi karin oon bood dheere tegayn meel u tegi kara male qoloo ku jira Twitter waxbuu soo qoraa waa iska Facebook nasid ilmaha Facebook dadka dhamaa Facebook ku jira dadkaas ku jira Facebook oo kamid yahay lafid fiiri ninka aan dastuurkan taageero ku haysan oo aan maamul goboleed taageero ku haysan oo heshiis siyaasadeed aan taageero ku haysan oo heshiis oo taageero dadweyne aan haysan oo iska raba kaliya ah rabitaankiisa inuu ku joogo asagoo u sabab tahay muuqaal maskaxeedkiisa maaragtay this they call the political imagination ayaa wuxuu waana noo sheegi hadda kore wuxuu dhahay mar uu meeshaan yimaadeen madaxweynaha Djibouti oo maalin ka qudbeynaya safaaradda Djibouti wuxuu dhahay dowladda Soomaaliya waxaa la shisbay sameeyay dhahay 2000 Ismaaciil Cumar Geeli waa joogaa oo dhahay wilina waa joogaa waxaa la rabaa kula inaan 10 ka baran bimacna aakhir wuxuu shan madaxweyne iyo 9 ra'iisul wasaare marayna hawdha waxa soo dhahay ma loo baahna waxaa la rabaa inaan 10 ka barano يعني دولة جيبوتي هي مدحوين هودا هي سي حكوميان وهول وتالا غير جيبوتي لكن أنا 10 كما برناينو جيبوتي كما برناينو إريتريا كما برناينو إثيوبيا كما برناينو 10 أنو عن لين هاي أو صومالي أي لين هاي أو أن كبرناي تاريخ ده وحنا صومري أو أنفع يان قادنا ناي وحملها اللي جسوكو بيه وحنا أنفع ما مركا تاريخ ده dhaqanka siyaasadana aan aqoon internal dynamics ka Soomaaliya aan aqoon wadadii la soo maray aan aqoon oo macnaha dad aan ehel ahayn oo dhibaatadeen aan fahmi karin oo meeshan ka nimid aan ogeyn ninka dhigi jiray Jawaariya wuxuu dhigi jiray Soomaaliya meeshay u socoto ma garan karo qof aan ogeyn meeshay ka timid marka dad waxaan helay meeshay ka timid aan ogeyn haday meeshay ka timid yaqaanana ay haystaan waxay tahay waa durbaankii iyo guulwadayaashii iyo habrihii iyo degmooyinkii iyo hangashtii iyo dhabarjabintii iyo NSStii iyo aabowdii iyo sacabkii iyo qurunkii laga yimid bay dadka qaarkood la tahay in la soo celi karo su'aal xafiiska madaxweynaha waqtigu ma ka dhamaaday ha iyo may waa ka dhamaaday ma isku dayay inuu waqti ku darsado ha waay ma laga diiday ha waay heshiis siyaasadeed ma la gaaray ha waay maxaa lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey doorashooyinka iyo amniga inuu ra'iisul wasaare qabto sax soo maaha asiga wax u haray ma jiraan dastuurna ma haysto maamul goboleedna ma haysto heshiis siyaasadeedna ma haysto taageer dadweyne ma haysto waxaana dhici doonta Soomaaliya farmaajogiisa just like Trump you know Trump 250 sano dawladii jirtay buu wuxuu damcay inuu doorashadii diido ciidamada isticmaalo kaso waa ogad asxilka asoo wareejin markii kuwa oo xayawaan oo geesale buu ku sii deeyay hay'adda sharci dejinta America waa ka dabaalatay labadii aqal waa shaqeeyeen madaxweyne doorteen dawlad dhisteen ciidanka Mareykanka dhexdhexaad ay ahaayeen markii la dhaay madaxweynuhu waa la dhaaraa oo diyaar raacay asiga ku sii geesala xoolaha xayawaaninta ah marka kaliya maxaa loo baahay marka aniga markii maxaa loo baahay hal sano askarta Soomaalidu waa inay u dhaqbaan sida askarta Mareykanka waa inay ogaadaan waxay daacad u yihiin dastuurkan waxay daacad u yihiin halkan ciidanka Soomaaliya waxa ugu xiran xidigta Soomaaliya ugu xiran waa calanka askarteena waxaa laga rabaa inay daacad u noqdaan of course bacda Allah subhanahu wa ta'ala ilaahi dadkeena waa muslim taas kama hadlayno markay timaado dawladnimo ay timaado xidigtaas iyo dastuurkan oo heshiis dadweyne ah oona wax alla wixii islaamka hore ma aan ogoleen
ayaa laga rabaa askarteenu inay u hoggaansamaan. farmaajo waa shaksi waa yimid waana baxay waqtigiisina waa dhammaaday. farmaajo in history askarta soomaalida marka askariga aan saas yeelin oo aan u hoggaansamin calankan inta ugu xiran iyo dastuurkan ee uu farmaajo soo diray ee u shaqeeya waa maleeshiyaad. maleeshiya waa weliba waa maleeshiya beeleed. maleeshiya beeleedna dadka Soomaali si u dhaqmaa waa yaqaaniin. marka ciidanka Soomaalidu garbaha waxa ku saaray waa biro wax weyn ma waa macdan. macdantaas waxay qiimo leedahay markaad ku ilaalinayso xidigtaas iyo dastuurka. haddaadan ku ilaalinayn xidigtaan aadan ku ilaalihayn oo calanka Soomaaliya ah oodan dastuurka ku ilaalihayn waxa garbaha ku saaran inaad generaal tahay inaad cornel tahay inaad gaashaan tahay macna male maleeshiya tahay meelaha biro ka soo qaatay oo garbaha soo saartay shacbiguna wasa ka dhacayaan li'annu kuwa hor aaween. I don't say inaad dhoo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aaween ma fi. marka anaga nin biro wata oo inta loo soo saaro nin soo saaray oon intan uu daacad u ahayn labadan wuxuu noqonaa maleeshiya noqonaa. maleeshiya noqonaa ciidan maaga. national army waxa ah to protect the national constitution and national institutions. bas ayaa askari ah. askariga aan ilaalilayn national interest, national constitution, national institution aan ilaalinayn waa nin eygiis waa waliba haddii loo baahdo xataa waliba wax laga dhigaysana waana iska dhicina ma garatay. marka dadka Soomaalida waxaa la rabaa inay dowladnimada u fahmaan siday tahay dowladnimadu. dowladnimaduna waxay ku qoran tahay intay ku qoran tahay. wax alla wixii aan la shaqaynayn meeshan aan la shaqaynayn dowladnimo ma aha. waa burcadnimo waa boob. dalkan dowladaan dastuur lahayn qaanuun lahayn dadka disha xirta boobta dhacda gabdhaha kufsata waa soo maray.